Kenya is safe for tourists, for investors here at the coast and Kenya in general. afartii bishan February waxaa dalka Kenya ku geeriyooday mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu saameynta badnaa ee soo mara dalka Kenya waana madaxweyne Daniel Toroitich arap Moi. waxaan eegi doonaa taariikh nololeedka Moi iyo xogo badan iyo dhacdooyin ku gadaaman intii uu xilka ka hayay wadanka Kenya. Distortion of events in Africa is destroying Africa. I must say Western world is driving Africa into the abyss. madaxweyne Daniel Toroitich arap Moi waxa uu dunida ku soo biiray 2 bishii September sanadku markuu waa 1924 waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda leerado Kalejenta ee fadhigeedu yahay galbeedka wadanka Kenya. waxa uu xilka madaxweyne ku xigeenka qabtay sanadku markuu waa 1967 waana bilowga gogol xaarka inuu madaxweyne ka noqdo wadankan. kadib dhimashadii madaxweynihii koobaad ee wadanka Kenya Jomo Kenyatta waxay Moi u ahayd guul siyaasadeed oo gaaray maadaama xilligaas ay jireen siyaasiyiin kale oo ku hareereysnaa Kenyatta kuwaasi oo qudhoodu hanqal taagayay inay xukunka qabtaan. sanadkii 1987 waxaa arap Moi loo dhaariyay xilka madaxtinimada waxa uuna ka maamulayay tan iyo 2002. madaxweyne Moi waxa uu ka tirsanaa xisbigii waagaas talada dalka Kenya ee KANU xisbigaasi oo ay aad isugu dhawaayeen madaxweynihii isaga ka horeeyay Jomo Kenyatta. arrintaasi uu saashay inuu saameyn ballaaran ku yeesho maamulkii xilligaasi jiray oo ka tirsanaa maalmihii ugu horeeyay xukunkiisa. waxa uu shacabka dalka Kenya ugu baaqi jiray inay gacan ka siiyaan sidii uu dhisi lahaa dalka Kenya oo waxa uu caan ku ahaa ku-dhigii caanbaxay ee Nyayo oo mar walba doonayay in dalka lagu sii maamulo siyaasadihii Jomo Kenyatta oo aabaha dhalay madaxweynaha iminka talada Kenya ee Uhuru Kenyatta. Daniel Toroitich arap Moi waxa xilligaas uu taageero badan ka haystay shacabka Kenya waxaana la sheegay inuu wax badan ka qabtay dhanka dhaqaalaha, waxbarashada iyo ammaanka. Mr. Moi ayaa xilligii ugu horeeyay xukunkiisa waxa uu sidoo kale taageero ka haystay dalalka reer galbeedka oo waxa ay u arkayeen in ka hortagi kara nidaamkii shuuciga ee Soviyetka oo xilligaas laga cabsi qabay inuu ku baaho geeska Afrika. inkastoo maamulkii Moi uu gacan bila ku qabtay Kenya haddana waxaa jiray rag ka tirsanaa militariga oo isku dayay inay xilka ka turaan. saraakiil ka tirsanaa ciidamada cirka ee militariga Kenya ayaa sanadkii 1982 sameeyay isku day afgembi oo markii dambe fashilmay kadib markii uu soo farageliyay General Maxamuud oo ah nin Soomaali ah oo ka tirsanaa militariga Kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya. tallaabadaas la doonayay xilka lagaga tuuro madaxweyne Moi ayaa la aaminsan yahay inay horseeday in madaxweyne Moi uu la soo baxo dabeecado hor leh sidoo kalena uu noqdo keligii taliye ka oo cuuryaamiyay dimuqraadiyaddii ka jirtay dalka Kenya. dad badan ayaa xilligaasi loo taxaabay xabsiyada waxaana xigay xadgudubyo ka dhinaca xuquuqda aadanaha, dilo lagula kacay dad aan la dhacsanayn siyaasadiisa iyo qabyaaladda oo ku baahday dalka Kenya. waxaana eragii ahaa Nyayo oo macnihiisu uu yahay hore u socod. dad badanna marka ay maqlaan ay soo xasuusin jireen wadaninimada uu isku bedelay mid dadka xasuusiya tacadiyada iyo jirdilka ay dawladda Moi kula kacday dadkii uu markaas u arkayay inay mixnad ku noqon karaan dawladdiisa. dawladaha ugu tunka weyn caalamka ayaa xilligaasi joojiyay taageeradii ay sii jireen maamulkii madaxweyne Moi waxaana cadaadiskii wadamadaasi ay saareen Moi ay keentay in dalka Kenya uu sanadkii 1992 ka hirgalo nidaamka xisbiyada badan. hase yeeshee xilligaasi ma aysan jirin mucaarad isku toosan oo awood leh oo mar kale doorashadii dhacday 1992 iyo 97 waxaa ku guuleystay xisbigii madaxweyne Daniel arap Moi ee KANU. horaantii 90-yadii madaxweyne Moi waxa uu cadaadis kala kulmay dalalka caalamka iyo hay'adaha caalamiga kadib markii laga deeriyay musuqmaasuqa iyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee wadanka Kenya ka jirta. xilligaas waxaa sidoo kale aad u liicay dhaqaalaha Kenya waxaana dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ay markii dambe keentay in uu lumiyo taageeradii ay u hayeen dalalka reer galbeedka. arrintaasi oo horseeday in la takooro maamulkiisa. sidoo kale madaxweyne arap Moi waxaa aad loogu xasuusan doonaa dhowr xasuuq oo ku geystay dalka Kenya intii uu xilka madaxtinimo hayay waxaana ugu daran oo durba xasuusta ku soo dhacaya xasuuqii Wajeer ee Wagala
dowladdii madaxweyne Arap Moi waxa ay xilligaasi ku raad joogtay sidoo kale dadkii aaminsanaa deegaanada la isku oran jiray NFD ay ka mid noqdaan Soomaaliya waxaana dadkaasi oo Moi ku tilmaami jiray kuwa burcada ciidamada dalka Kenya ayaa dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof ku laayay tuulada Wagala ee Wajeer walaw xasuuqii Wagala uu noqday mid ku taala oo xanuun badan ku reebay dad badan oo Soomaaliya haddana weli waxaa muuqatay in tacadiyadii dhacay xilligaasi taliska Moi aan waxba laga qabanin warbixin ay sanadkii 2013 soo saareen guddiga cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee TJRC loo soo gaabiyo waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay cadaalad fasho magdhowna siiso dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay dowladdii madaxweyne Moi wala warbixintaasi aanan la dhaqan gelin ilaa iyo haatan inkastoo madaxweyne Daniel Toroitich Arap Moi lagu tilmaamo in uu ahaa wadani keligii talis ah oo Afrikaanimaduna ay aad ugu weyn tahay haddana dad badan oo reer Kenya waxay ku xasuusan doonaan xumaan iyo wanaag si gaar ah uu sameeyay qof walba oo Kenyan geerida madaxweyne Daniel Toroitich Arap Moi waxa ka tacsiyaday hogaamiyaal badan oo Afrikaan ah iyo sidoo kale kuwa hogaamiya wadamada reer galbeedka Arap Moi waxa la filayaa in aas qaran loogu sameeyo gudaha dalka Kenya waqtiyada soo aadan distortion of events in Africa is destroying Africa. I must say Western world is driving Africa into the abyss.